magaalada Garowe ayaa 6 Juun 2026 lagu soo gabagabeeyay toddobaadka dhaqanka Puntland oo ah munaasabad sanadle ah oo lagu xoojiyo ilaalinta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. barnaamijkan oo socday muddadii u dhaxaysay 31 May ilaa 6 Juun ee sanadkan 2026 ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka Puntland iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin, aqoon-yahano, fanaaniin, hal-abuuro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. toddobaadka dhaqanka Puntland ayaa waxaa loo qabtaa sidii loo ilaalin lahaa dhaqanka Soomaaliyeed loona dhiirigelin lahaa jiilalka cusub in ay bartaan kuna faanaan dhaqankooda. sidoo kale munaasabadani waxay fursad u tahay in la soo bandhigo suugaanta, fanka iyo ciyaaraha dhaqanka. meesha kama maqna farsamooyinka soo jireenka ah ee ummadda Soomaaliyeed. sanad kasta muddada uu socdo toddobaadka dhaqanka waxaa la qabtaa bandhigyo kala duwan oo ay ka mid yihiin barnaamij suugaaneed oo ay ka qayb galaan abwaano iyo hal-abuuro, bandhig faneed iyo dhaantooyin dhaqameed, iyo doodo iyo kulamo looga hadlayo doorka dhaqanku ku leeyahay horumarka bulshada iyo ilaalinta aqoonsiga Puntland. afku dhiman maye murti dhumucle iyo dhismihiyo naxwaha dhexda kaga jirya dhihid iyo qoraal isu dheelitiran qandooriya hatena dhaawiciyo niman dhalad ahayn dhaya umaalehe wanku dhaato anuu idhadhamahaya qandooriya hatena dhaawiciyo niman dhalad ahayn dhaya umaalehe wanku dhaato anuu idhadhamahaya afku dhiman